casharkan waxaan ku baran doonaa find LCM or LCD of polynomials sida loo helo LCM-ka ama LCD-ga polynomials. LCM wuxuu u taagan yahay least common multiple. LCD-na wuxuu u taagan yahay least common denominator. Polynomials-kana waa taqaan. qaybtaana waa qaybtii koowaad. waxaan ku baran doonaa sida loo soo helo LCM-ka ama LCD-ga. LCM iyo LCD waa isku mid. waa laba wax oo labada eray baa kala duwan laakiin waa isku wax bay macnaynayaan. waa sida kaala iyo imow oo kale. kaala iyo imow waa laba eray oo kala duwan laakiin macnahooda waa isku mid. marka LCM iyo LCD waa macnahooda waa isku mid. marka waxaan sida ugu qoray inaan buugaagtaadan ku wareerin marka aragtid LCM iyo LCD aadan u kala malayn wax kala duwan. LCD waxaa loo isticmaalaa fractionka ama jajabka ayaa loo isticmaalaa sida rational expressionka. markaa isku daray sidoo kale waa inaad haysatid least common denominator ama lambarka hoose waa inuu isku mid noqdaa. marka hadda casharkan waxaan ku baran doonaa sida marka ugu horeysa waxaa lagugu yiri waxaad soo heshaa LCM-ka 8x iyo LCM-ka 6x oo leh exponent 3. waxaad soo heshaa LCM-ka 8x iyo 6x oo leh exponent 3. marka ugu horeysa waxaad subinaysaa prime factorization ayaad subinaysaa. prime factorization haddii aadan aqoon waxaad daawataa cashar kale oo ku saabsan prime factorization. marka waxaan subinaynaa 8 lambar 8 iyo lambar 6 baa prime factorizationkooda soo helaynaa. marka ugu horeysa 8 baan ka bilaabaynaa. 8 u qaybi 2. 8 2 loo qaybiyey waa 4. 4 u qaybi 2. 4 loo qaybiyey 2 waa 2. marka lambarada primeka ayaad calaamadsanaysaa. lambar 2 waa prime number waa calaamadsanaysaa. lambar 2 waa prime number waa calaamadsanaysaa. lambar 2 waa prime number waad calaamadsanaysaa. lambar 4 ma prime number marka ma calaamadsanaysid. marka lambar 6 baan soo helaynaa prime factorizationkiisa ama lambarada primeka marka la isku dhufto noqda 6 baan soo helaynaa. marka 6 waxaad u qaybisaa 6 u qaybi 2. 6 2 loo qaybiyey waa 3. 3 u qaybi 2. 3 waa prime number marka ma sii wadi karno ma sii qaybin karno marka meesheeda ku daynayna. marka lambar 2 waa prime number waa calaamadsanaysaa. lambar 3na waa prime number waa calaamadsanaysaa. marka hadda 8x iyo 6x square may 6x oo la exponent 3 8 waa prime factorizationkeeda waatana halkan nuugu calaamadsan yahay. waa 2 lagu dhuftay 2 lagu sii dhuftay 2. 3 labaad waa lambarada primeka marka la isku dhufto noqda 8. 6 waa maxay prime factorizationkeeda? 6 waa 2 lagu dhuftay 3. 2 iyo 3 waa laba lambar oo prime ah oo marka la isku dhufto waxay noqdaan 6. marka hadda waxaa noo haray x-ta iyo x-ta oo leh exponent 3 inaan factor garayno. marka tusaale ahaan oo kale x-ta la factor garay muxuu noqonayaa waa iska x. marka kan wuxuu noqonayaa lagu dhuftay x. x oo leh exponent 3 haddaan factor garayno muxuu noqonayaa 3x oo la isku dhuftay weeye. x lagu dhuftay x lagu sii dhuftay x uu noqonayaa. marka halkan ayaan ku qoranaynaa ku dhufo x ku sii dhufo x ku sii dhufo x. marka hadda 2 ku dhufo waa 6. 3x la isku dhuftayna waa x square. marka hadda LCM-ka ama LCD-ga waa wax laba isku mid ah. LCM-ka wuxuu noqonayaa hadda lambarada prime factorizationka subinay baan waxaan ka dooranaynaa lambaro ayaan ka dooranaynaa. halkan iyo halkan baa lambar ka dooranaynaa oo LCM-kan gelinaynaa. marka lambarada la dooranayo wuxuu noqonayaa waxa la subiyaa lambar walba meeshu ugu badan oo uu ka muuqdo ayaa laga doortaa. hadda bal u fiirso 2 3 jeer bay waxay ka muuqataa factorizationka 8x bay waxay ka muuqataa 3 jeer baa lambar 2 ka muuqataa. halkaana 2 waxay ka muuqataa 1 jeer. 6x oo la exponent 3 factorizationkiisa hal mar ayaa 2 ka muuqataa. halkaana 3 mar ayaa 2 ka muuqataa. marka lambar walba LCM-ka markaad dooranaysa ama least common multiple waxa la subiyaa lambar walba meeshu ugu badan yahay oo uu ka muuqda ayaa laga soo qaataa. marka hadda bal u fiirso halkan wuxuu leeyahay 3 labaad buu leeyahay
intan wuxuu leeyahay hal labo marka labo meesha ugu badan tahay ka muuqato waa halkan waana 3 labaad marka 3da labaad baa soo qaadanayna isku dhufanaysa labo ku dhufo labo ku sii dhufo labo hadda lambar 3 u fiirso lambar 3 meesha ugu badan tahay ka muuqato waa halkee waa halkan sababtoo ah halkan kaliya hal 3 buu leeyahay meeshan 3 kala ma lahan marka meesha ugu badan ka muuqdo lambar 3 waa halkan marka ayadana 3dana qaado 3da qaado soo qaadanay hadda x yada u soo harnay x yada waa inaan qaar ka qaadanaa marka bal u fiirso x ta meesha ugu badan tahay ka muuqato waa halkee bal u fiirso x ta halkan 8x factorization kiisa hal mar bay x ka muuqata halkaana 6x oo exponent 3 factorization kiisa 3 mar bay x ka muuqata marka meesha ugu badan ee uu lambar ka muuqda ayaa laga qaataa marka halkan 3x ayuu leeyahay 3x baan qaadanaynaa marka halkaas 3x ku qoro 3 lagu dhuftay 3 lagu sii dhuftay 3 marka LCM ka waa isku dhufasho marka hadda markii la isku dhufto laba ku dhufo ku sii dhufas labo waa 8 ku dhufa 3 waa 24 weeye 24 x dan isku dhufo x ku dhufo x ku sii dhufo x waa 3 waa x oo leh exponent 3 marka LCM kaadi wuxuu noqday 24 x oo leh exponent 3 ayuu noqday 24 LCM ka waa kaas ayuu noqday LCM ka 24 x oo leh exponent 3 tusaalahan waa tirtiraynaa waxaan subinaynaa tusaale kale hadda waxaan subinaynaa tusaalahan 15x iyo 20x waxaan soo helaynaa LCM kooda marka ugu horeysa waxaad dhiganaysaa 15x ayaad dhiganaysaa marka saas u dhigatid 15x 20x na waad dhiganaysaa marka saas u dhigatid waxaad subinaysaa prime factorization ayaad subinaysaa haddaydan aqoon xitaa kan kale videoga kale okay markuu saas yahay waa maxay lambarada prime-ka marka la isku dhufto noqda 15 waa 3 iyo 5 weeye x tana waa ku sii dhufanaysaa 3 5 lagu dhufto x waa 15x ayuu noqonayaa waa maxay lambarada prime-ka marka la isku dhufto noqda 20 waa 2 lagu dhuftay 2 lagu sii dhuftay 5 x tana waa ku dhufanaysaa marka 2 lagu dhufo 10 2 lagu dhufo 4 ku sii dhufo 5 20 ya 2 lagu ku dhufo waa 4 ku sii dhufo 5 waa 20 ku dhufo x waa 20x markuu saas yahay LCM ka wuxuu noqonayaa LCM ka wuxuu noqonayaa least common multiple ka wuxuu noqonayaa hadda lambaradena prime factorization ka baan waxaan subinaynaa ama lambarada factoring ka baan waxaan ka qaadanaynaa lambaro ayaan ka qaadanaynaa marka lambar walba meeshu ugu badan yahay uu ka muuqda ayaa laga qaataa bal u fiirso hadda lambar 3 oo kale u fiirso lambar 3 halkee bay ugu badan tahay ka muuqata lambar 3 meesha ugu badan tahay ka muuqata waa halkan waxayna ka muuqataa hal jeer marka lambar 3 aan soo qaadanaynaa 3 lagu dhuftay hadda lambar 2 bal u fiirso lambar 2 meesha ay ugu badan tahay ka muuqataa halkan dhan prime factor inta ma lahan 2 factorkan 15x factorkiisa 2 ma lahan lambar 2 waxay ka muuqataa waa meeshan wuxuuna leeyahay 2 labaad ayuu leeyahay 20x wuxuu leeyahay 2 iyo 2 marka meesha ugu badan ay ka muuqato lambar 2 waa halkan marka labadoodaba soo qaado 2 lagu dhuftay 2 waxaana ka muuqataa meeshan 2 jeer ayaa ka muuqataa markaan soo qaadanay 2 ku dhufo hadda lambar 5 oo kale bal u fiirso 5 halkan way ka muuqataa halkan way ka muuqataa marka meesha ugu badan ee 5 ka muuqato waa halkan hal jeer ba ka muuqataa halkan 5 waxay ka muuqataa hal jeer marka maadaama meesha ugu badan ee ka muuqata ay hal jeer tahay hal 5 baa soo qaadanaysaa labada 5 ba ma soo qaadanaysid lambar walba meesha ugu badan yahay ka muuqda laga soo qaataa marka 5 hal mar bay halkan ka muuqataa lambar 5 hal mar bay halkan ka muuqataa marka meesha ugu badan tahay ka muuqato oo meel ah waa hal mar marka hal 5 baa soo qaadanaysaa hadda x oo fiirso kan wuxuu leeyahay x ay ka muuqataa factorkiisa 15x x ay ka muuqato factorkiisa 20x na x ay ka muuqata marka hal x baa ka muuqda x meesha ugu badan tahay ka muuqato waxay ka muuqataa hal jeer bay ka muuqataa halkan waxay ka muuqataa hal jeer intan waxay ka muuqataa hal jeer marka meesha ugu badan ay ka muuqato maadaama ay hal tahay hal jeer baa soo qaadanaysaa x laakiin hadda bal labada u fiirso labada waxay ka muuqataa halkan 2 jeer ay ka muuqataa marka waa inaan soo qaadanaa marka hadda LCM kan wuxuu noqday sidaan
wuxuu noqday 3 lagu dhuftay 2 lagu sii dhuftay 2 lagu sii dhuftay 5 lagu sii dhuftay x isku dhufa marka calculator inta soo qaatid calculatorkayga haddaan soo qaatay isku dhuftay wuxuu noqday 60 ayuu noqday lambarada markaan isku dhuftay 60 buu noqday x tan ku sii dhufanaysaa 60x ayuu noqday marka jawaabteedu the LCM wuxuu noqday 60x ayuu noqday 60x tusaalahan waan tirtiraynaa waxaan subinaynaa tusaale kale hadda waxaan subinaynaa tusaalahan waxaan soo helaynaa LCM ka x laga jaray 5 iyo LCM ka x lagu daray 5 marka ugu horeyso waxaad dhiganaysaa x laga jaray 5 ayaad dhiganaysaa haddana waxaad dhiganaysaa x lagu daray 5 marka waxa lagu yiri LCM kooda soo hel x laga jaray 5 LCM ka soo hel wax ka wada labadan LCM kooda soo hel lagu yiri x laga jaray 5 iyo x lagu daray 5 marka ugu horeyso taan factor gareyno muxuu noqonayaa x laga jaray 5 haddaan factor gareyno wuxuu noqonayaa x laga jaray 5 ayuu noqonayaa haddana noqon factoring xataa ta video kale ku saabsan waka x lagu daray 5 haddaan factor gareyno muxuu noqonayaa x lagu daray 5 ayuu noqonayaa sababtoo ah uu factor gareysan yahayba mar hore uu factor gareysan yahay marka halkan hadda LCM ka wuxuu noqonayaa LCM ka ama LCD ga ama LCM ka wuxuu noqonayaa x laga jaray 5 meesha ugu badan ee ka muuqato waa halkee x laga jaray 5 hal jeer bay halkan ka muuqataa marka waan soo qaadanaynaa ayadii x laga jaray 5 waan soo qaadanay x lagu daray 5 meesha ugu badan ee ka muuqato waa halkan waxayna ka muuqataa hal jeer bay ka muuqataa marka ayadana waan soo qaadanaynaa x lagu daray 5 marka LCM kan wuxuu noqday x laga jaray 5 lagu dhuftay x lagu daray 5 marka iskuma sii dhufanaysid LCM ka san ayaa ku daynaysaa sidaan uu yahay ayaad ku daynaysaa iskuma dhufanaysid oo sidii polynomial isku dhufan jiray oo x lagu dhuftay x haddana x saas ma sii dhahdhaysid sidaan ayaa ku daynaysaa marka LCM ka wuxuu noqday sidaan ayuu noqday waa ina parentheses galisa sababtoo LCM ka isku dhufasho markuu isku dhufasho yahay labadan x laga jaray 5 iyo x lagu daray 5 waa la isku dhufanayaa marka parentheseska ayaa micnihiisu wuxuu yahay labadan waa la isku dhufasho marka sampa ku daynaysaa marka LCM ka wuxuu noqday x laga jaray 5 iyo x lagu daray 5 waka tusaalahan tirtirayna waxaan subinaynaa tusaale kale hadda waxaan subinaynaa tusaalahan 3x laga jaray 12 iyo 6x lagu daray 12 waxa lagu yiri waxa soo heshaa LCM kooda soo hel marka ugu horeyso waxaan dhiganaynaa 3x laga jaray 12 iyo 6x iyo 6x lagu daray 9 ayaan dhiganaynaa marka saas u dhigatid haddana saas u dhigatid ba hadda kan baan factor gareynaynaa marka ugu horeyso taadana qoysada waxa loo factor gareeyo waxa data video kale ku saabsan factoring ku saabsan marka ta kan baan factor gareynaynaa marka factor gareynaysid waa maxay lambarka ugu weyn oo labadoodaba loo qaybin karo waa maxay lambarka ugu weyn loo qaybin karo 3 loona qaybin karo negative 12 lambarkaas waa lambar 3 marka hadda 3 waxa u qaybsaa 3 loo qaybiyo waa hal marka halkan waxa ku soo haray x ayaa ku soo haray negative 12 waxa u qaybsaa 3 negative 12 loo qaybiyo 3 waa 4 waa negative 4 baan ka wadaa hadda kan oo kale waa maxay labada lambarka ugu weyn oo loo qaybin karo waa maxay lambarka ugu weyn oo loo qaybin karo 6 iyo 9 lambarka ugu weyn oo 6 iyo 9 loo qaybin karo waa lambar 3 asagana marka 3 dhigatid waxaad subinaysaa 6 u qaybi 6 waxaad u qaybisaa 3 6 loo qaybiyo 3 waa 2 x tan waa ku qoranaysaa 3 waxa u qaybisaa 9 waxaan ka wadaa 9 u qaybi 3 9 loo qaybi 3 waa 3 weeyaan waa 3 markuu saas yahay LCM ka wuxuu noqonayaa lambar walba meesha ugu badan yahay ka muuqdaa laga soo qaataa hadda lambar 3 halkan way ka muuqataa halkan way ka muuqataa 3 inta way ka muuqataa intana way ka muuqataa soo qaada 3 marka meesha ugu badan ee 3 ka muuqato waa hal mar bay ka muuqataa marka halkan 3 hal mar bay ka muuqataa intana hal mar bay ka muuqataa marka meesha ugu badan ee 3 ka muuqato maadaama hal mar yahay hal 3 baa soo qaadanaysaa hadda haddana kan wuxuu ka muuqdaa halkan
x laga jaray 4 wuxuu ka muuqdaa hal jeer buu inta ka muuqdaa intana kama muuqdo marka halka jeer baa soo qaadanaysa x laga jaray 4 baa soo qaadanaysa hal jeer sababtoo meesha ugu badan ka muuqato waa hal jeer baa soo qaadanay marka 2x lagu daray 3 hal jeer ba ka muuqataa factorizationadan marka ayadana hal jeer baa soo qaadanaysa 2x lagu daray 3 marka LCM kaada wuxuu noqday x hadan parenthesis x laga jaray 4 parenthesis x lagu daray x 2x plus 3 parenthesis marka